Boqoradii Caraweelo ee ku caan baxday Ma aqbali karno gumaysiga iyo addoonsiga ragga. Caraweelo waxaa la yidhi waxay ahayd gabar caqli iyo garaad ku dhan yahay, oo ku hanweyneyd mar uun inay rag quusiso, arladana ka taliso, isla markaana aan ku qanacsanayn kaalinta dumarku ku leeyihiin bulshada oo ahayd ilmaha iyo aqalka oo qura. Marka raggu keligiis shirayo ayay caro la dillaaci jirtay oo odhan jirtay, oo waatan hal qof oo dumar ahna shirka laga qaybgelinayne bal eega. Maalintii dambe ayay soo fakartay xeel ay ku inqilaabto ragga, taladana ay dumarku kula wareegaan. Dumarkii ayay aragtideedii kacaannimada ahayd ka dhaadhicisay, waxayna tiri si aan u inqilaabno ragga oo dhimasho iyo burbur ugu geysano, waxaan maalinta inqilaabka ku mashquulinaynaa carruurta. Haye iyo hawraarsan ayaa lagu heshiiyey. Dumarkii raggii ayay u yimaadeen oo waxay ku yiraahdeen, waxaan doonaynaa inaan sidiina oo kale annaguna shirno ee bal hal maalin ilmaha idinkuna haya. Raggii oon shirqoolka jira ka warqabin ayaa is yiri kolleyba waa iska dumaroo mindhaa abaysatadoodii iyo hawlahoodii ayay qabsanayaane hal maalin wax idinma yeelaysee bal ilmaha haya. Waa sidii lagu ballamay. Raggii oo ilmihii la daalaa dhacaya oo mid kasta keligiis gurigii ilmo ku haya, ayaa inta loo tagay madaxa laga wada guray oo laga daba qaaday heestii Shimbirayahow hees wanaagsan u qaada bulshada cusub. Hal nin oo la oran jiray Oday Biiqe ayaa ka fakaday oo ka badbaaday, iyo ubadkii yaryaraa iyo wixii uurka lagu siday. Waxaa arladii ku soo haray ilmo yaryar oo saqiiraha iyo kuwa caloosha lagu sido. Caraweelo oo lahayd iyadu taladaas ragga lagu gumaaday ayaa loo caleemo saaray inay noqoto boqoradda dumarka, waxaana lagu ballamay in rag dambe aan wax talaa laga dhagaysan, si taasi u dhacdana in gebigoodba la ciribtiro. Carruurta yaryar iyo kuwa uurka lagu sido oo dhalan doonana in la dhuufaano oo iyagoo kuramo ah lagu shaqaysto ayaa lagu heshiiyey. Sheekadu way dheer tahay oo aakhirkii Oday Biiqigii la fakaday ayaa gabar iyada Caraweelo ah dhashay intuu duurka ka helo guursan doono iyadoon iyadu la socon, sidaasna wiilkii iyada dili lahaa ayay gabadheedu ku qaaday. Aakhirkiina isagaa dili doona Caraweelo, isagoo taariikhdii hore iyo sida wax u dhaceen aabihiis Oday Biiqe ka helay, isla markaasna siiyey tabtii uu boqoradda jini uga takhalusi lahaa. Sidaas ayayna ku galbatay boqoradii Caraweelo, oo ina rag meel aysan ka filayn ayuu uga soo baxay, oo markii wiilkii Daa'uuskii ahaa inta isgalay ku shaashiyey waranka, tartarada jaray oo dhulka dhigay, yiri nacasta rag bay is mooday, maanta neecaw qabow iyo dabeel nafaclee timi. Oday Biiqna markuu maqlay Caraweelo xabaalaha in la dhigay ayuu isna yiri, dadaal rag ha ka dayrin oo niyad baan u laadayaa hurdada. Arladiina waxaa ka soo yeertay dhulku waa nabad. Caraweelo waxaa la sheegaa in waqti ay xukumi jirtay dhulka Eastern Central oo ah dhulka Oromada iyo deegaanka waqooyiga Soomaalida. Kelmadda Caraweelo sida ay sheegaan waxa uu ka kooban yahay laba eray oo ah Karawo iyo Weelo. Karawo micnaha waa dhulka, Weelo waa deegaamadii Geeska Afrika ay xukumi jirtay oo inta badan hadda ah dhulka Itoobiya, khaasatan dhinaca Oromada, ilaa laga soo gaaro waqooyiga Soomaalida. Waxaa la tilmaamaa inay awood ku qabsatay boqortooyadii Aksum oo dishay boqorkii xukumayay Boqor Xadaani, halkaasoo ilaa 40 sano ay ku amar taagleynaysay. Soomaalida qaar ayaa yiraahda Dhegdheer iyada ayay ahayd oo markay dhimatay loo qaaday Dhegdheer dhimatay dhulkii nabad. Waxaa kaloo la sheegaa inay beel ahaan ka soo jeeday qabiilka Ibraha, oo waa sababta ay Yuhuudda iyo Xabashada u tiraahdo asalkeeda waa Yuhuud. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Biliis haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar.